Sacuudiga oo xaram ka dhigay qalab lagu ogaanayo dadka qaba coronavirus. Boqortooyada Sacuudiga ayaa qaaday tallaabo cusub oo looga hortagayo cudurka COVID-19 oo dalkaasi iyo adduunyada inteeda kaleba ku haya dhibaatada. Dowladda ayaa albaabada xaramka Kacbada ee magaalada Makka al-Mukarrama ku rakibtay mashiino cusub oo ka dilaya fayraska COVID-19 qofka Kacbada galaya ama ka soo baxaya, taasoo ay qasab tahay in qof kasta oo mashiinkaas uu dhex maro. Sidoo kale mashiinka ayaa waxaa ku xiran kaamirooyin sheegaya xumada qofka oo ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee cudurkan, iyadoo ilaa hadda aan la sheegin cidda ka soo saartay mashiinkan iyo dhaqaalaha ku baxay. Arrintan ayaa ka mid ah dadaalada ay wado wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ee dowladda Sacuudiga oo looga hortagayo caabuqa coronavirus. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in mashiinkan uu hadda ku jiro tijaabada, haddii lagu guuleystana uu horseedi doono in dadka cibaadaysanaya loo furo xaramka. Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka Carabta ee uu sida xun ugu faafay cudurka coronavirus, waxaana laga helay dad ku dhow 34,000 oo qof, halka 219 qofna ay u geeriyoodeen.